السلام عليكم أصحاب سود وهذا نينكي عدان كها هبين هور غريهود ku toogtay xildhibaanadii ka kala tirsanaa aqalka wakiilada iyo aqalka sanadka ee baarlamaanka gobolka Minnesota oo ku dhawaad muddo 48 saacadood ciidamo kala duwan ay baadigoobayeen ayaa caawa waxa laga soo qabtay degmada Sibley County ninkan oo magaciisa la yiraahdo Vance Lover Potler oo 57 jir ah ayaa maanta duhuradii waxa gaari oo watay oo biyuga iyo koofidiisa laga helay meel aan ka fogeyn halkii uu gurigiisa ku yilay kadibna agagaarkii meel ka dhow beer uu lahaa ayaa diyaarad helicopter ay caawa ku aragtay isagoo aan iska caabin sameeynin wax rasaasana ridin ayuuna ciidamada isku dhiibay ninkan waxaan ognahay habeen hore in uu dhaawacay Senator John Hoffman iyo xaaskiisa Yvette isla markaana markaasi kadib uu soo aaday guriga xildhibaanad Melissa Holman iyo saygeeda Mark halkaasina uu ku toogtay oo ay geeriyoodeen marka laba qofna waa uu dhaawacay senator iyo xaaskiis xildhibaanad iyo saygeediina waa uu dilay marka hadda xeerdaalinta degmada Hennepin waxay sheegeen in lagu soo oogi doono laba dambi oo ah dil heerkiisu yahay midka labaad iyo laba dambi oo ah isku day dil dacwada federaal ah ayaa sidoo kale uu wajihi doona oo la xiriirtay in uu ka baxsaday ciidamada isla markaana in la xiro darteed uu baxsaday ninkan waa uu hubaysnaa waxaana laga cabsanayay in uu istili doono amaba uu dagaalami doono laakiin intaasiba ma uusan sameeynin oo iyadoo ciidamadu aysan wax rasaas ridin ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana la arkayay sawirkiisa oo isla markii ciidamadu ay goobta ku sawireen Minneapolis ayaa asla caawaba la keeni doonaa gudoomiyaha gobolka Tim Walz oo caawa shir jaraa'id qabtana waxa uu yiri waan u mahadcelinayaa dhammaanba ciidamadii kala duwanaa ee ka qayb qaatay soo qabashada ninkaasi waxana uu sheegay in cadaalad ay heli doonaan xildhibaanadii uu dilay saygeeda iyo sidoo kalena senatorkii iyo xaaskiisa uu dhaawacay waxana gudoomiyaha gobolka uu yiri maanta xitaa maalintii aabayaasha ahayd in ciidamadan aysan u suuragelin in qoysaskooda ay la dabaaldegaan isla markaana dabagalkan ay hayeen ninkan ay ku soo qabanayaan waa uu mahadceliye waxana uu sheegay in cadaalad ay heli doonaan qoysaskii dhibaatadan uu geystay marka ugu dambeyntii ninkii ahaa Vance Lover Potler gacanta ayaa lagu soo dhigay oo ciidamadu gacanta ay ku soo dhigeen isla berrina waxa la filayaa inuu maxkamad uu ka soo hormuuqdo waxyaabaha kale ee ka soo kordhana hadii aan leedmo waa dila soo socodsiin doona asxaabta waa mahadsantiin